golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa go'aamiyey in la geeyo dalkaasi ciidamo boolis oo caalami ah si ay isugu dayaan dhammaynta dagaalka iyo xadgudubyada bani'aadanimada laga galo ee halkaasi ka jiray muddada sanadka ah. Golaha ayaa ogolaaday qiraal qabyo ahaa oo Faransiisku ay soo bandhigeen kaasoo ugu baaqayay 228 ciidamo boolis ah in ay halkaas sanad ku joogaan. Ciise Xaaji Cabdulla ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan inoo haya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in ciidamo boolis oo caalami ah la geeyo dalka Burundi si ay isugu dayaan inay wax ka qabtaan colaad iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ka jira in ka badan muddo sanad ah. golaha ayaa aqbalay qaraar qabyo oo soo gudbiyay dalka Faransiiska oo ku baaqay in ciidamo gaaraya ilaa 228 la geeyo Burundi muddo hal sano gudahood. François Delat waa safiirka Faransiiska oo fadhiya qaramada midoobay. Face à la montée des violences et des tensions, le Conseil de sécurité doit disposer d'yeux et d'oreilles. Marka la fiiriyo qalalaasaha kordhaya iyo xiisadda ayay tahay in golaha ammaanku uu indhaha ku hayo waxa halkaas ka socda si looga baaraan dego loona xaqiijiyo in wax aad u xun aysan Burundi ka dhicin, in gacan laga geysto kalsoonida dadka. Joogista booliskan waa in ay caawiyaan in xiisaddu yaraato oo la wada hadlo. Waxay sidoo kale gacan ka geysanayaan in ay u digaan golaha haddii xaalku sii xumaado. dhanka kale marsii horeysay Burundi waxay sheegtay inaysan aqbali doonin wax ka badan 50 askari oo kaliya in dalkeeda la geeyo. in ka badan 500 oo qof ayaa lagu dilay dalka Burundi waxaana daliilkaasi lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen booliska dalka Burundi waxaana rabshadahaasi ku barakacay in ka badan 200,000 oo qof. December sanadkii tagay ayay ahayd markii madax ka tirsan Midowga Afrika ay ansixiyeen qorshe qabyo ah oo ciidamo nabad ilaalin ah loogu dirayo dalka Burundi si ay u difaacaan dadka rayidka ah xitaa iyadoo dawladda dalkaasi aan ogolaansho laga helin. balse madaxweyne Pierre Nkurunziza Burundi ayaa xilligaasi ku hanjabay in dalkiisu uu arki doono duulaan haddii Midowga Afrika uu ciidamo u soo diro Burundi. kadib markii madaxweyne Nkurunziza uu diiday in ciidamo la geeyo dalkiisa ayaa haddana sanadkan gudihiisa Midowga Afrika waxa uu shaaca ka qaaday in dalka Burundi u dirayaan 100 kormeerayaal xuquuqul insaanka ah iyo 100 askari oo dusha kala socdo xaaladda dalkaasi. rabshadaha dalka Burundi ka aloosan waxay ka dhasheen go'aankii uu Mr. Nkurunziza mar saddexaad ugu tartamay doorashadii sanadkii la soo dhaafay ka dhacday dalkaasi. mahadsanid Ciise Xaaji Cabdulla ayuu kaasi ah. haddaba su'aasha meesha taalla ayaa waxa ay tahay sida loo fasiran karo qiraalkan cusub ay qaramada midoobay ku geynayaan dalka Burundi ciidamada booliska ah kuwaasi oo joogi doona muddada sanadka. Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo ka faallooda arrimaha caalamka ayaa arrintaas uga warramay Ciise Xaaji Cabdulle. qaraarkan cusub oo uu Faransiiska ka dambeeyo waa arrin khasab ku noqon doonta hoggaanka Burundi walow ay hore ugu adkaysteen inaan aqbali doonin in ka badan 50 booliska. dhanka kale waa shaqo adag oo taala qaramada midoobay iyo diblomaasiyiinta ajaanibta ee ku lug leh xaaladda cakiran ee Bujumbura sidii ay uga gorgortami lahaayeen arrintan iyo meelmarinteeda. Ditore maxay isdhaamaan tirada ay dawladdu ogolaatay iyo midda cusub ee qaraarkan uu ansixiyay? marka fiirisid 50 iyo 223 ciise wax weyn ay isdhaamaan ma lahan. aan ka ahayn in ciidan ajnabi ah la keeno Burundi in kala dooda ah markasta waxay ka kaalmayn doontaa qaramada midoobay inay ciidamadan hadday yar yihiin hadday badan yihiin ba ay u noqdaan dhigo iyo indho si ay xaaladda jirta ee dhabta ah si hoose ugu odorisi karaan sidaas darteed ay uga hortagi karaan xasuuq kale oo ka dhaca ama Burundi ama guud ahaan gobolkan loo yaqaan harada weyn sidii kala hor ay uga dhaceen Rwanda iyo Burundi. xaalku ma sidaas ay u daran yahay bay kula tahay waa xaaladda Burundi aad uma darna laakiin wuu sii cakirmaya baad moodaa maalinta ka dambaysa waxaa sii badanaysa awoodda ay dawladdu leedahay weliba xasuuqa ba'an aan loo aabayeelin ay dhalinyaro xag jiraho dawladda ay hubaysa ay ku sameynayaan cid kasta oo lagu tuhmay inay kaalmo siiso mucaaradka. dhinaca kale mucaaradka uma eka qolyo wayadan diyaar ah inay waan ka galaan in la heshiiyo. markaad fiirisidna guud ahaan tan intii horaantii 2015 colaadda Bujumbura ay bilaabatay waxaa dhintay ku dhawaad 400 oo qof iyo siyaado waxaana dalka ka qaxay oo qaxooti ama barakacay gudaha dalka ilaa 200,000 oo qof dad kor u dhaafay. horaantii waxaa jirtay in madaxweyne Pierre Nkurunziza uu isaga ka biyadiiday in ciidamo Midowga Afrika ka socdo dalkaasi loo diro. haatanna waa kan ay galaadeen ilaa 50 ciidan oo booliska caalamiga inay halkaasi la geeyo. marka maxay ku kala duwan yihiin labada dhinacba? dhinac wuxuu dareemayay in aad moodid in gobonnimadii Burundi wax loo dhimayay waxaana jirta cabsi galaangalka Rwanda ay ku yeelan karto go'aan heer qaramada midoobay ah. waxaad moodaa markii in cadaadiska uu dhaafay Midowga Afrika oo hadda qaramada midoobay tagay gaar ahaan ay ku lug leeyihiin si gaar ah
dalal ay Burundi saaxiibo gaar u yihiin. dadaaladii diblomaasiyadeed xaggay ku dambeeyeen iyaga way socdaan oo ciidankan booliiska geyntiisa waa ka qayb dadaaladaas diblomaasiyadeed la doonayay in lagu nabadeeyo Burundi. dadaalkuna waxa uu hadda ka jira meel marinta qaraarkan oo moodid inuu si aad u adag yahay. si kastaba se arinta Burundi ciiso ma aha mid fudud. ugu dambeyntii Dr. Bursaliid Faransiisku isaga saameyn intee lag buu ku leeyahay Burundi waa kan qaraarkan hordhigay golaha ammaanka qaramada midoobay kadibna loo ansixiyay. Faransiiska saameynta uu ku leeyahay Burundi guud ahaanba gobolka loo yaqaan harada weyn waa mid aad u weyn waliba tani intii ay sida tooska isugu dhaceen dalka deriska ee Rwanda markii kal hore lagu soo eeday inay ka dambeeyeen xasuuqii dhacay 1994. waxay Paris waayadan dambe isku dayeysay inay si tartiib ula socoto gobolkan si waliba aad uga duwan dalalka Francophone loo yaqaan ku hadla afka Faransiiska oo ay ka odayayso taasaana keentay inay halwadeen gaar ah ka noqoto arinta Bujumbura dhexdhexaadinna markaan ay ka gasho waana tan keentay in qaraarkan hadda la soo rogay ay ayagu daraafkiisii ugu horreeyay kaasina wuxuu ahaa Dr. Faarax Bursaliid oo arrimaha caalamka iyo ka faalooda markana qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo Facebook ka soo raa'yi dhiibtay waxa ka mid ah dhageysta magaciisa ku soo koobay Samatar Hargeysa jooga wuxuu leeyahay kalamaan laba aanan isqaban Burundi haddii ay rabto ciidamo nabadda u ilaaliya kuweeda Soomaaliya jooga hal la baxdo oo ha ku ilaashato nabadeeda Soomaaliya waxa kaliya u joogaana waa inay mushaar qaataan Jaamac Ali Kismaayo ayuu jooga wuxuu leeyahay qorshaha ay qaramada midoobay ciidan ku geenayso Burundi ma ahan mid shaqayn doona ama wax ka bedeli doona xaaladda Burundi maxaa yeelay dal ay ciidamo geysay oo amni laga helay waa la waayay waxa ay kordhiyaan ayuu leeyahay dagaalada iyo qaraxyada marka hadalka qaramada midoobay waa waqti lumis waa sida uu Jaamac Ali qabe Maxamed Jacfar oo Burco joogana wuxuu leeyahay qaramada midoobay way ku saxan tahay hadalka waayo Burundi waxa ay u baahan tahay ciidamo dhexdhexaad ah oo ka hortaga rabshadaha ka socda muddada sanadka ah halkaasi dhageystayaal halka aad nagala socotaana waa BBC London.